Assalaamu calaykum. Sidee ayay jasiiraddii kaneecada badneed ee Malaysia iska ciirisay oo ay ka saartay midowgeedii ku noqotay dal ka mid ah dunida koowaad? Yaase dabaha guusha qaadsiiyey? Maxaase ka baran karnaa? Ku soo dhowaada qisada guusha dalka Singapore. Singapore waa dal yar oo hal magaalo ah, kaas oo ah jasiirad yar oo dhacda koonfurta bari ee qaaradda Asia. Waa dal baaxad ahaan aad u yar oo ku fadhiya masaafo gaaraysa 722 kiilomitir oo isku wareeg ah. Magaalada Dar es Salaam ee Tanzania ayaa ka baaxad weyn guud ahaan dalka Singapore. Singapore waa jasiirad kabaha ku haysa dalka Malaysia. Dadka waddanka dega waa Chinese, Malay iyo Hindu. Markii ay Britain ka xoroobeen ayay go'aansadeen inay la midoobaan Malaysia oo ay u arkeen dal ay isku dad yihiin. Sanadii 1963 ayay la midoobeen Malaysia iyagoo noqday dal qura. Balse nasiib daro 2 sano kadib, Malaysia baarlamaankeeda ayaa u codeeyay inay Singapore ka go'do Malaysia ayna ka baxdo. Iyagoo sheegay inay tahay jasiirad yar oo kaneecad badan, dad saboolan ay ku nool yihiin taasoo aan faa'iido ugu jirin dalka Malaysia. Xilligaas Singapore waxay ahayd waqtigeedii ugu xumaa, waxaana ceyriyay dad kuwii ugu dhowaa. Lee Kuan Yew oo ra'iisul wasaaraha xilligaas ayaa kaamirooyinka hortooda ku ooyay isagoo ka walwalsan halkii uu geyn lahaa dalkan la iska ceyriyay dadkiisuna ay faqriga u badan yihiin. Intaa kadib Lee waxa uu go'aansaday sidii uu Singapore ugu saari lahaa duruufta adag ay ku jirto uguna mid dhigi lahaa waddamada ugu hodansan dunida. Lee muddo badan ayuu arrinkaasi ku mashquulsanaa, dalkana kama uusan bixin. Waxay taariikhdu xustaa in socdaalkiisii ugu horreeyay ee dibadeed uu sameeyey sanadii 1973 muddo 8 sano dalka kama uusan bixin. Lee Kuan Yew sanadii 1990 ayuu xilka ka degay isagoo loo aqoonsaday aabbihii waddanka. Waxa uuna sababay Singapore inay noqoto maanta xarun caalami ah oo hooy u ah waxbarashada, madadaalada, dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka, raasimaalka, saadka, wax soo saarka, tiknoolajiyada, dalxiiska, ganacsiga iyo gaadiidka. Waddanka waxa uu ku jiraa heerarka caalamiga. Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay Singapore dal haysta tiknoolajiyada ugu sarreysa, taasoo mar walba diyaar ah. Waa dal ay ku kulmaan hay'adaha iyo shirkadaha ugu waaweyn ee dunida, ayna ka dhacaan shirarka caalamiga. Waa dal leh maalgelinta ugu wanaagsan ee dunida. Singapore waa dal aad u qurux badan, sidoo kale waa mid ka mid ah dalalka ugu amniga badan caalamka. Waa dal leh dhaqaalaha ugu firfircoon ee caalamka, dal kaalinta saddexaad kaga jira waddamada ugu musuqmaasuqa yar caalamka. dal uu ku yaalo suuqa sarifka saddexaad ee caalamka ugu weyn. Dalku wax khayraad ah ma lahan, xitaa ma lahan dhul beereedyo ay wax ku beertaan. Khudaarta laga isticmaalo oo idil waa mid dibadda kaga timaada. Sidoo kale ciidda wax lagu dhisto dibadda ayay kaga timaadaa. Sidaas oo ay tahayna waa dhul cagaar ah, ayna ku yaalaan daaraha ugu dhaadheer uguna qurxoon caalamka. Sidoo kale dalka Singapore waa xarunta saddexaad ee ganacsiga dunida, ahna xarunta saddexaad ee dunida shidaalka lagu nadiifsho. sidoo kale ahna dalka shanaad ee ugu hal abuurka sarreeya caalamka, sidoo kalena leh dekedda labaad ee ugu mashquulka badan caalamka. Sidoo kale magaalada Singapore waa magaalada ugu nolosha qaalisan dunida, taasoo muddo badan soo ahayd. Dekedda Singapore waxaa lagu tilmaamaa inay tahay hormuudka dekedaha caalamka, si la mid ah garoon diyaaradeedka Changi ee Singapore waa kan ugu wanaagsan caalamka. Diyaaradda Singapore Airlines waa diyaaradda ugu wanaagsan caalamka, iyadoo sanadkii hore loo doortay inay tahay tan caalamka ugu wanaagsan. heerka horumarka aadanaha Singapore waa dalka 9aad ee caalamka ugu horreeya. Waddanku waa dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. Dhaqaalaha dalka Singapore waxa uu kor u dhaafayaa 370 bilyan, kaasoo ka mid ah 30 dal ee ugu horreeya dunida. Sidoo kale dalku waa kan saddexaad ee ugu hodansan dunida. Dakhli sanadeedka soo gala dadka Singabuuriga waa $98,000 sanadkii. Dalku waa dal ku horumaray hanaanka waxbarashada. Jaamacadda Singapore waa tan ugu wanaagsan guud ahaan qaaradda Asia. Sidoo kale daryeelka caafimaadka ayaa aad u wanaagsan. Dadka reer Singapore waxaa lagu tilmaamaa inuu cimrigooda gaaro ilaa 80 sano celcelis ahaan. Waddanka waxaa ku nool 5.7 milyan oo qof. 39% dadkaasi waa ajaanib degan oo ka shaqaysta dalka. 4 luuqadood oo rasmi ayaa looga hadlaa dalkaasi Singapore oo kala ah Ingilishka, Malayga, Madaariga iyo Taamilka. Waddankii la ceyriyay ee kaneecada iyo faqriga hooyga u ahaa, maanta waa mid hormuud u ah dhaqaalaha, tiknoolajiyada, aqoonta iyo hal abuurka dunida. Waxaa heerkaas gaarsiiyey nin loo arko inuu ahaa hogaamiyihii ugu wanaagsanaa qarnigii 20aad, waa Lee Kuan Yew. Singapore waa tusaalaha dal kasta oo xaaladiisu ka soo bilaabatay meel liidata,
waa tusaale dunida ay eegato. Haddii aan Soomaali nahay, waa tusaalaha ugu wanaagsan ay waajib tahay inaan cashar ka barno kuna dayano, laakiin ma nahay kuwa u soo jeeda inay dalkooda dhistaan.